wafdigan uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle Cali Cabdulaahi Xuseen Guudlaawe waxay maanta ka soo degeen garoonka diyaaradaha degmada Bulaberde ee gobolka Hiiraan waxaana halkan ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta maamulka degmada odayaasha dhaqanka waxgaradka ururada dhalinyarada haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Bulaberde muhiimadda ay mas'uuliyiintan u yimaadeen degmada Bulaberde oo ka tirsan gobolka Hiiraan waxay tahay sidii ay u daafuri lahaayeen ilaa 6 mashruuc oo maamulka Hirshabelle uu ka hirgeliyay degmada Bulaberde mas'uuliyiinta ayaa intaasi kadib waxay howlka shirarka degmadan ay kulan kula qaateen qaar ka mid ah qaybaha bulshada ay ka kooban tahay ee ku nool degmada Bulaberde oo ka tirsan gobolka Hiiraan xubnaha maamulka degmada qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka waxgaradka nabadoonada xildhibaanada iyo wasiirada maamulka ayaa aad u soo dhaweeyay xubnaha mas'uuliyiintan uu warkacayo Cali Cabdulaahi Xuseen kuwaasi oo maanta yimid degmada Bulaberde waxaana ay sheegeen in ay ka mahad celinayaan hirgelinta mashaariicda xilligan laga fuliyay degmadan ku soo dhawaada degmada Bulaberde waa soo dhaweynayna si kale ilaa soo dhaweynayna in alla intaan karno oo soo dhaweyna aad baan ugu faraxsanahay inaad noo timaadaan waxaan ognahay in degmadani ay warqabada ka saaran tahay qoladii nabadiidka ay magaalada ay kor ka hayaan magaaladana ay dad badan oo bulsho aad horumar u jecel ay ku nool yihiin haddaan isku furan inta waqtiga dhiman Hirshabelle ka dhiman muddada sanadka 2020 haddaan joogo magaalada Bulaberde aan isku mari karin amniga annaga kaashanayno wasaaradda gaashaandhigga iyo dowladda federaalka guud ahaanteeda hay'adaha amniga wax badan haddaan xagga amniga laga qabano in degmada ay horumar badan ay gaari lahayd dib u dhac weyn oo ku imaanayo runtii waxaan si gaar ah u xuseynaa wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka kaalintii mugga lahaa runtii ay ku lahayd waxaan leeyahay reer Bulaberde waxbaan iila bilaabay waa dhiig joojin wax allaale wixii niila dhisa gacanta ku qabsada adigoo wada jir ah waa iga dardaarankaan raba inaan joodiyo waa intaas wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cali Caadle ayaa ka sokow daafurka mashaariicda oo bulshadan uu ku tilmaamay inay tahay mid muhiimad u leh waxaan idinka rabnaa inaad noogu kaalmaysiin in aan dhisno golaha deegaanka haddii golaha deegaanka la dhiso mashaariicda runtaheed ee mucjisada markaasay jirtaa laakiin haddaad adigu aad hor joogsataan oo golaha deegaanka in la dhisa ay suurageli weyso mashaariicdan qoladi bixisayna waxay cagadiiday ay ka muujin doonaan kuwa ka dambeeya soo socdaan waa istaagayaan iyo bulshada degmada Bulaberde ee ayaguna niyadooda iyo dadaalkooda ku soo gaarsiiyay in mashaariicdan ay fusho isla markaana sidoo kale maamulkii bixiyay dhulka laga dhisay 6 mashaariic marka waxaan leeyahay mashaariicdan maanta xalfadda aan joogno oo xalfadda xarijarka 6 mashaariic ay isugu jiraan xarunta degmada howlka shirarka bulshada garoonka ciyaaraha nalalka waxaan leeyahay bulshada reer Bulaberde waxaan kula daarmeynaa in mashaariicda bulshada loo fuliyay ilaashadaan oo isaga dhigay bari ka maalin waxaan dowladda dhistay iyo hay'adaha dhistay hore waxaan u fiiqnaa 30 sano wixii dowladda dhexe noo dhistay saan u dhayn laamigan maxamed siyaad baa dhistay waa fiiqnay dhulkii 30 sano kadib waxa dhis waayay halkaan hool oo aragtaan waxay qaadatay 6 bilood hoolkaan in la fuliyo oo maanta xarajadiisa loo joogo marka waxaan leeyahay bulshada reer Bulaberde waxaan kula daarmeynaa hadal badan aan ma buuxiyo runtii waxaan ku ammaanayaa reer Bulaberde inay rabaan horumar aad u weyn muddadii aan hore u imid magaalada waxaan ka arkay wax aad u wanaagsan ummad rabta inay wax qabsato laakiin la qof sii riixa marka reer Bulaberde runtii waa magaalo goodoona insha Allah ta'ala ana asmaamul ahaan anoo afkooda maamulka ku hadlaya runtii wax badan waa jecelnaa wax badan waa idin jecelnaa kamana maqnin Bulaberde waan ku soo laabanay waana iimaanayna wabillahi tawfiiq Cali Cabdulaahi Xuseen ku-xigeenka madaxweynaha maamulka Hirshabelle waxaa dhankiisa uu sheegay in hirgelinta mashaariicdan ay qayb ka tahay howlo mashaariic ah oo maamulka uu doonayo in uu ka fuliyo gudaha degmada Bulaberde iyo degmooyinka kale ee maamulka Hirshabelle uu gacanta ku hayo aad iyo aad u mahadsantihiin wayna kaga mahad celinayaa isku duubnidiina iyo dadaalkiina bulshada isku duuban tahay oo fikirkeeda midaysan yahay allana tala saartaana
sidaanay horumar u gaarayaan degmooyin badanaa jiro oo siday hadda degmadaan culays u saaran yahay aan culays u saarayn xaqiiqdii intaanu horumaran oona ka jirin waxay ku timidna raalli ahaansho rabbi iyo dadaalka bulshada iyo maamulka madaxdiisa oo il gaara ku hayso degmada Buulaburte maadaama nimankii nabadiidka ay culays gaara ku hayaan annaguna waxaan go'aansanay in wax allaale wixii yimaado oo horumar iyaga loogu roonaado sidaasaan go'aansanay Umar Soomane, Universal TV, degmada Buulaburte, gobolka Hiiraan.